فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار مال والبود أدجوكتان عيد مبارك أيان إذن الله نهي ciidan waa 4 maalmood sida islaamka ku astaysan ee liibana adduuniya aakhira meel walba aad joogtaan ciwaankeena waxa weeye sheegade warar fara badan ayaa ma arkaysa meeshan aan ka sii dayn doonaa oo culus laakiin wararku waa gooni yeeli doonaa oo goosan ayaan ka dhigi doonaa mar labaad iyo mar saddexaad SMC oo aan la idin kala hayn qaybta microphone-ka ayaan dadka ku soo dhaweyn doonaa haday jiraan dad doonaya in ay dalkooda iyo diintooda iyo dunyadooda iyo dadkooda u hadlaanba dhagaystayaal daawadayaal 2 bilood muddo laga joogo ama ku dhow waxaan shaashadan idin kula wadaagnay in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ninka hadda laga dhigay ee Dr. Dai lagu magacaabo u dhashay digil aw mirifle dabare ka soo jeeda oo markii horena ahaan jiray ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad xukuumadda federaalka Soomaaliyeed cadaadis in uu uga imaanayo qoyska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud sida gabadha lagu magacaabo Hinda Culusow oo protokolka madaxweynaha ah oo qoysna la ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gabar Xamdi la yiraahdo oo iyaduna ma arkaysa macni qoyska madaxweynaha ah waxay ku cadaadinayaan oo waliba ay ugu hanjabeen in jagada laga qaadayo xafiiska madaxweynaha in loo diidayo hadduu san fulinin in shirka ka dhici doona Geneva Switzerland xarunta qaramada midoobay shirkaasi dad ay lacag ka qaateen oo qoyskoodii ah ama qaraabadoodii ah in uu shirka ka dhacayo Geneva oo macnaheedu ogolaado dadkaasi in ay u tahriibaan qaaradda Yurub lacagana laga qaato qaraabanimana Yurub lagu geeyo iyagoo baasaboorro diblomaasiyiin ah ama diblomatic ah gacanta laga saarayo lacagana laga qaatay in ay wafdi ka mid yihiin wufuudaasi Soomaaliya uga qayb galaysa shirka ka dhici doona Geneva dhagaystayaal daawadayaal sidaasaan idin la wadaagnay haddii qaarkiin jaamacadan markaasi ay daawanayeen ama ay dhageysteen haddaba
ma arkaysa macnihii warkii aan idinla wadaagaynay in qoyska madaxweynaha ay doonayaan dad inay Geneva Switzerland ay u soo tahriibiyaan ma dhacday mise ma dhicin Soomaali maantay marag baan gashanaya Soomaaliya maanta dawladnimadeeda ceebta ku habsatay oo waliba xataa jaraa'idadii Mareykanka iyo macnihii administrationkii Donald Trump waxyaabaha uu cuskanayo travel banka taasaa qayb ka ah ilaan travel banka maalmo ka hor uu soo saaray laakiin wafdigan ma arkaysa macnihii inta Donald Trump aanu soo saarin warqadaasi travel banka ka hor ayay xamar macnihii Geneva soo galeen Switzerland shirka 113 ee shaqaaleynta ama shaqaalaha ma arkaysa macnihii adduunka oo Geneva ka dhacay maantay waxa macnihii dawladnimadii Soomaaliya baasaboorkii Soomaaliya sharaftii Soomaaliya iyadoo awalba dhulka aan ku jirnay Farmaajo iyo Xasan Cali Khayra waxyar nuurnuuriyay iyo Jawaari maantay waxa weeye Soomaali beegsiga waa xaddaaf siyaasi ha dhihin mas'uul ha dhihin shacab ha dhihin dad musuqmaasuq ku shaqaysta inaan nahay ayaa adduunkii shanta qaaro adduun way 8 bilyan ee adduunka ku nool horta meesha ay wax ka dhageystaan waxna ay ka akhristaan ana lagu soo qoray ceebta macnihii ku dhacday dawladnimadii Soomaaliya fiiri 20,000 ayuu marayaa baasaboorka diblomaasiga ah macnihii baasaboorka service-ka ah 20,000 ayuu marayaa reference numberkiisi hadda 20,000 oo la bixiyay oo dibadda soo aaday 20,000 macnihii ma ogtahay baasaboor walba number uu leeyahay 20,000 oo shaqaale ah oo dawladda Soomaaliya u shaqeynayay baasaboorka diblomaasiga ay dhiibeen referenceaha lambarada lama hayo dibadday galeen waayahay wuxuu marayaa baasaboorka diblomaasiga ah 17,000 oo diblomaasi ayuu marayaa baasaboorka Soomaaliga diblomaasiga reference numberkiisa ilaan baasaboor walba serial number uu leeyahay lambarka 17,000aad ayuu dhaafay Soomaaliya diblomaasigiisa marka Soomaaliya 17,000 macnihii oo qofood miyaa diblomaasiyiin u ah Soomaaliya diblomaasiyiinteeda 17,000 miyaa oo macnihii duurka galay 20,000 oo macnihii shaqaalihii dawladda baasaboor service aaway baasaboorka service-ka ah 5,000 oo ku bilowday maanta wuxuu marayaa 20,000 oo kor u dhaafay baasaboorka diblomaasiga ah wasiir dawlaha arrimaha dibadda Cali Balcad iyo Xasan baa shuraaka ku ah isagana wuxuu marayaa macnihii 50,000 60,000 uu marayaa marka 70 u socda intaas jacayl ma ahan يعني قفك الدبلوماسي بورصدي سوى كجري لما بارو بروتوكول كالدنيا مركو إيرابوردا كسو دقو مركا تاسا كينيسا إنو قاليوبو شعايل لمان إن داد لغو تهريبيو في سوينكي ولا سجد بي مادي وحواي يعني باسبور كسيرفيس كحلوان والبا هذا المدوبة صحيحة يقدوميها بارلمان كسومان اوكي قف ما وضطها افركن صدحكن ايتاك شنكن ايتاك لا قف كان يعني اديركي سو حنونسن اما سيمينار sidaasay wada noqotay shirkii Geneva oo ma arkaysaa hadda socdaba maanta aan kula hadlaayo oo axad ah macnaa aanu dhamaanin dadkii Soomaaliya ay soo dirsatay kuraasta Faaruq waay kuraasti Faaruq war Soomaaliya aaw dadkii ka socday wafdigii macnaa boosaska ilaa moogta reservation loo sameeyaa maqaayada xataa hadii aad balansato وان إيمانا يا أترى الضرب كاجي أديت reservation واي كايدين كرسي يميس بالوجو كايدين أيا عنتا لوجو تلاجل أيا جنيفا كراستي الدنيا ده أردن يسوق إيمانا يسو سوماليا لما هايو ضد كي يصدر ستي هوتيل كي دقين بل إنا يحنون صدين إنك الهلا فيريو هذا ويسني بالقار baaritaan hadii la galiyay dadka dad lacag laga soo qaatay diblomaasiyad aan shaqo ku lahayn baasaboor diblomaasiya loo soo jaray ayayba ahaayeenba shirba wax kama ogaba horta ma arkaysa warka aan sheegaynay waa uu soo baxay baan u maleynayaa wasiirka arrimaha dibaddana markaasi wuxuu yiri ila nin aqoon leh oo Mareykan ka yimaado waxaan ma yeeli karo yiri aniga Soomaaliya ceeb ku tahay
wasaaradda arrimaha dibadda ceeb ku tahay markii hore fiqiyaa joogay fiqina waxay rabeen bay ka samaysan jireen qoyska xasan laakiin ninkan wuxuu isku dayay ad adeeg waxaa lagu yiri jagadaa lagaa qaadaya wariyaa nama hor istaagi karta annaga eelaayo xunka ah you cannot annaga nama hor istaagi kartid adiga iyo kan ku magacaabay ma arkaysa xamse wallahi waa isku kiin tuuraynaa waan idin tuuraynaa horta sidaasaa dhacday ilaahay wuxuu markhaati ka yahay inaan meeshaan ka sheegay bil ka hor inay ahaydaan u malaynayaa iyo bil iyo bar adiga 2 bilood muddo ku dhow in arrintaasi baasaboorka ah macnihii Soomaaliya ceebta haysataa yacni in wasiirka arrimaha dibadda Dr. Dai iyo qoyska xasan inay sidaas qoorta isula galeen oo macnihii shirka soo socda Geneva dad baan u wadanaa oo tahriib ah wariyaa ogolow fududee haddii kale meeshaan ma joogaysid in la dhahay sirtaasi waan idin la wadaagnay shirkiina maantay bisha 6 ayaa lagu jiraa waxa weeye waa uu dhacay Soomaaliyana ilaahay uu ku ceebeysaan u sheegaynay noqotay waaba la waayayba dadkii Soomaaliya macnihii ka yimaaday baasaboor diblomaasiga Switzerland fiisooyinka ay siisay lama hayo waaye jaraa'idada adduunka oo dhan baa qoraay horana arrintan waxa u sii fashiliyay nin ay dhahaan Dr. Habib arrintan haddaad dhaylsatid Soomaali matid mucaaradnimada iyo dhaylsashada kala laba waay because arrin qof walba oo Soomaaliya ay saameynayso waay soo ma socono yaa naga socod badan hatta wadamada Afrikaanka iyo Carabaha hatta macnihii way nagu dhibaataynayaan muwaadinka Soomaaliyeed dad iska dabuureeg u samaysan inaanna top meeshii ugu sarreysay aan joognaa madaxweynihii iyo qoyskiisa iyo dawladii dhamayd ayaa macnihii samaynaysa shirkii caalamku isku arkayay lama hayo bal meeshan qormadan gaaban aan ku akhriyo aniga af Ingiriiska ma aqaano a delegation or a smuggling ring macnihii ee sufuuftan ma wufuud baa mise macnihii tahriibin maxaan ku fasirnaa waa ka jaraa'idada qoraay waa la yaabay way waxay leeyihiin in early June 2025 horaanta bishan June 2025 a Somali delegation with the Somaliyeed was sent to waxaa loo soo diray represent in ay matalaan the country wadanka Soomaaliya in ay matalaan ay wadanka ku matalaan at the 113th session kulankii 113aad of the international law ee macnaheedu shaqaalaha adduunka macnaheedu ururka shaqaalaha adduunka oo loo soo gaabiyo ILO in Geneva Switzerland shirkaas oo ka dhacaya Geneva Switzerland xarunta qaramada midoobay the group was meant groupka waxa loola jeeday to participate in ay ka soo qayb galaan in high level discussions macnaheedu kulan ama kulamo heerkoodu sareeyo heer caalami ah about ee ku saabsan labor rights xuquuqda macnaheedu shaqaalka iyo waliba development iyo horumarinta shaqada and international cooperation iyo iskaashiga caalamiga ah on paper warqad ahaan inay uga qayb qaataan theory this was a routine diplomatic mission macnaheedu tani waxay ahayd yacni shaqo diblomaasiyadeed oo degan bay ahayd oo heer caalami ah but like what happened instead of maxaa dhacay was a textbook macnaheedu qalin iyo book intii laga sugayay maxaa dhacay example of how weak institutions and rampant corruption musuqmaasuqa la yaab kale ee ka jira have turned Somali's diplomatic efforts ee u bedelay dadaaladii diblomaasiyadeed ee Soomaaliyeed in international security risks in macnaheedu ammaanka caalamka qatar uu ku noqdo marka waayay of 23 delegates 23 wufuud ah originally listed oo macnaheedu liiskooda wufuud ahaan loo liis gareeyay la qoray only 10 actually showed up their conference kaliya 10 laga arkay lama hayo wixii kale the remaining intii kale the remaining 13 saddex iyo 10 kale members ay xibnaha vanished waa la waayay not due to illness loomana weynin shirka loogama weynin xanuun dartiisii or scheduling conflicts ama macnaheedu khilaaf
حديثا أو مديسا but وحلو وايي as part of deliberate and escape into Switzerland and other parts of Europe ضد Europe أسو تهريبي يا Switzerland تهريب كهي هدا This individually allegedly شخصيات كان وفود باسبورك الدبلوماسي وتي الشركة ليسكا كو قرنا ميسكا لغواي paid thousands وحي صوبحيان كمانان كن of dollars الدولار كالعقد مريكان كاه each to secure their Swiss visas وحي العقدتاسي وديبين in فيسada Switzerland lagu soo galayo ay macnaheedu hantaan ay xaqiijiyaan according to credible sources macnaheedu sida ay ku waramayaan wararka ila lagu kalsoon yahay the money was funded to lacagta waxa macnaheedu la siiyay and divided by isla markaana qaybsaday federal minister of labor wasiirka shaqada iyo shaqaalaha and social affairs iyo arrimaha dibadda Yusuf Mohammed Aden and Umar Farouk Osman ayaa qaatay iyaga qaybsaday lacagaha iyo qoyska Xasan Secretary General of the Federation of Somali Trade Unions Muhammad Kudiman what was told to the world as an official government delegation was hadda adduunka maxaa loo sheegaa marka maxaa loo sheegaya marka see la dhahaa haddii dawladii dhamayd fiisooyinkii macnaheedu baasaboorro diblomaasiya ay lacag ka samaynayso shirarkii caalamiga tani waxay noqotay baa la yiri bad migration pipeline macnaheedu tuubo la nuugayo oo tahriibinta ah dawladda Soomaaliya qoyska madaxweynaha ay sameeylayaan disguised oo taasoo haddana lagu qabaynayo ama lagu maskaraataynayo ama lagu daahayo ama lagu daboolayo under the Somali flag calanka Soomaaliyeed tahriib waaye laakiin calankii Soomaaliyeed baa waxa lagu hoos tahriibinayaa dad lacag looga qaatay marka maxaa loo eedeynayaa dhalinyarada Algeria ku dhamaanaysa maxaa laga rabaa dhalinyarada Algeria ku tahriibaysa tadanaaba macnaheedu madaxweynaha iyo qoyskiisa tahriibka haddana kaaga sii daran international platform fadhigii caalamiga ah platformkii caalamiga ah ayaan ku ciibownay maanta waji ma qarsoona tani markay dhacday Trump waa marka uu soo saarayo Soomaaliya way ku jirtaa travel ban waliba si gaar ah sabab dawladeedu ma hanan karto baasaboorkeeda way isku qas fiiri 20,000 oo baasaboor service ka waran dawladda Soomaaliya Ethiopia meeqa way 120 milyan ma tahay 20,000 referenceeda lama weynin oo service shaqaalaha dawladda sheek adiga annaga meeqaanahay haday u badato 50 milyan 60 milyan aan nahay dal iyo dibad marka la isu geeyo laakiin 20,000 buu marayaa referenceha baasaboorka diblomaasiga hay ugu beeniyaan dawladda Soomaaliya wasiirada hay ugu beeniyaan wasiirka hay ugu beeniyo ninka laanta socdaalka jooga hay ugu beeniyo 20,000 ayuu kor u dhaafay lambarka referenceha ee baasaboorka service-ka ah ee dawladda shaqaaleeda la siiyo lama hayo way hay ugu beeniyaan 17,000 ayuu dhaafay tirada lambarka baasaboorka diblomaasiga ah ee Soomaaliyeed ceebayn ma ahan meeshan dalkeena inaan ceebayno uma soo fadhiisanin laakiin ceebta nagu dhacaysa iyo sida socodkeena khatar u gali doono aaminkii inuu adduunka ka dhamaanayo ileen shacab oo fiiso socday ma ahan meeshan waxa weeye dawladii dhamayd waay qoyskii madaxweynaha waay maantana ma bilaaban ingiriiska markii boqoradan u tacsiyadan uu yiri 150 qofoodu fiisa u dalbaday oo protocolkayga madaxweynaha way diideen ingiriiska waxay dheen protocolkaaga 20 kugu filan laakiin 150 qofood protocolkayga ila socda tahriibinay ahayd waayahay 260 milyan oo dollarka Mareykanka ah Switzerland ayaa lagu qabtay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed isagoo tahriibinaya money laundering that is corruption isagoo sameynaya dhakab been sheegaya walaalayaal ma waxaad idin rabtaa macalinka lugayaa sheegay been uu ka sameeyay photoshop way propaganda way ma saasa idin rabtaa way ceebtaasi marka Soomaali ma saameynaysa miya haddaan ka nimaano Abgaal iyo Wacaysle iyo Cali Gaaf
iyo yabadhaal cali gaaf iyo reer axmow haddaan ka imaano hawiye iyo daarood iyo dir iyo digl iyo mirifla haddaan ka imaano qiyamka iyo karaamada iyo sharafkeenna dowladnimo iyo socodkeenna caruuraheenna ma saamaynaysa miya annagana ma saamaynaysa miya marka arrintan qof walba oo Soomaali ah ceeb u taalo waay shanta qaaradood maanta waxa saaran wafdiga macnaheedu Geneva loo soo diray lama hayo marka intay awal wadamada kale u soo diri jireen aan ku fashilmina badan laakiin Geneva waa lagu fashilmay aniga ma qorin waa ka international media qoray saxaafadii caalamka qoraysa ilaan annaga is dhageysana xanteena laakiin caalamku meelay wax ka akhriyaan meelay wax ku qoraan Switzerland carada ka muuqata waad u jeedaa Bundesamt Migration SEM waad u jeedaa Schweizer Migration Eidgenossenschaft waad u jeedaa lama hayo wafdigi passport diblomaasi ku yimaadeen fiisooyin baa la siiyay shirki kama qayb galin boosaskoodu waa firaaqo adduunkii oo dhan uu fadhiyaa marna macnii meel naaga ay ku shiraayaan shirka haweenka generalan u soo dirsanay oo nin ah waa la yaabay sheekada markay meeshaasi joogto abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash oo abwaanada Soomaaliyeed ah heesuu qaaday wuxuu yiri wal yaabe waxba nooma hambaynin nimankan qabriyadii iyo annaga guriyaan iska duminayno xaq iska dhig laakiin wax ay noo hambeeyeen xasan iyo qoyskiisa haba yaraatee ma jiro